magaalada Nairobi ee dalkani Kenya waxaa ka socda wada hadallo u dhaxeeya ONLF iyo dawladda Itoobiya waxaana ka hadlay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalkani Kenya Farax Macalin. ONLF Soomaa sharaf aan bay soo qabteen way soo dagaalameen markii hore laakiin maanta way ka hoostay waa lagu dangaari markii lagu dangaaro markii 100 sano oo waqti ku afurwaad maqashay Soomaa markii hadda Itoobiya ay burburayso cadkoodana ay goosan lahaayeen iyagana ay sii diiraan lahaayeen way markii ay isdiibayaan oo masuuliyiinta oo ku adeeganayso kuwa kale u jajabiyo iyagana hadda waa meesha lagu hayo 100 sano wada dhul isku haysto meel saddex bilood ka soo bixi kartaa Itoobiya inteeda ka hadhayna waxa la rabaa in lagu qabsado Soomaali waliba ogaadeen lagu qabsado Soomaaliya iyada hadda waa lagu gumaystay oo lagu jajabiyo وهذا أنكو شيء إنك سرقال كه وشرينا إنما كي قلمي دكسو ديبين درها أنتو أسأل ماشي تيجي الله بقول لي حوالي إنه Soomaali الأولى يسوي عيدا Soomaali وإثيوبيا كسعود مركا هرت أنا إن اللي جوا أنتو اللي عقلية مو يه ما مدة هذه إثيوبيا يسي ودورة الأولى واللي شيء هيسا تنتظر وضعهم بيك وطار لكن اللي جدا جارنا سيد ما عنده تأسيس ما يحرنا يعني دستور كوسة فلسطين بعدنا الأورا العلم العربية خيرات كبا لو دليهي شدال كبا ودن كودا كبوحا غاز كبا كبوحا ذهب كبا كبوحا معدنتي كلو يورانيوم كلمتك هبا كبوحا تا كده هداي هلان waxay ka dhaadhacsan hata qoomiyadahan farada badan oo 120 milyan inay iskaga maslixi karaan iskaga xalin karaan iyaga dad uma baahna xabashi Soomaali lama baahna dalka uma loo baahan yahay waxay ku dagaalamaan dalka dadkana in lagu shaqeysto camiil ay ka dhigtaan hadana camiilnimadii way ka gudbeen maxaa waxay xukumaan Puntland bay xukumaan oo Somaliland bay xukumaan oo waxay xukumaan galmudug bay xukumaan oo Jubbaland bay xukumaan oo camiilka ugu dambeeyay asaga hadda iyaga oo maxay ahayd ay ku shaqeystaan waxa la waxay doonaan way ka gaari karaan ninka halka meesha Axmed Waliir ay ku shaqeeyaan ninka loo shaqeey ninka wadaadka shaqeeya